أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka ee doctor minow dabiib yahay. caawa waxaynu ka hadlaynaa dietka mediterranean-ka ama cuntada ay cunaan dadka ku nool dhulalka mediterranean-ka. waa dhulalka wadamada ay hareereyso ama ay marto xeebaha mediterranean-ka. waa wadamo badan oo ilaa iyo 22 wadan dhan, waxaana ka mid ah kuwa ugu caansan Turkiga, Talyaaniga, waxaa ka mid ah Masaarida, Faransiiska, Spain iyo kuwa kale oo xeebaha ay marto. marka maxay tahay ahmiyadda cuntada ay cunaan dadka Mediterranean-ka ku nool xeebaha Mediterranean-ka wadamada ay marto? waxaa la arkay in dadka cuntada Mediterranean-ka isticmaala inay ku yar tahay cudurrada wadna xanuunka iyo dhiigkarka inuu ku yar yahay. taana ay keenaysa in caafimaadkoodii uu wanaagsanaado iyo cimrigoodana uu ka badan yahay ama ka dheer yahay dadka kale ee cuntada Mediterranean-ka aan isticmaalin. cuntada Mediterranean-ka waxay kaloo u dhowdahay tan ay isticmaalaan dadka ku nool dalka Japan. marka muxuu ka kooban yahay ama maxay tahay waxyaabaha lagu yaqaano cuntada Mediterranean-ka ama Mediterranean diet? marka hore, ma jiro hal wax oo laisku raacsan yahay oo qasab ay tahay inuu ku jiro Mediterranean-ka. marka noocyo kala duwan ayay u jiri karaan, laakiin waxaanu soo qaadanaynaa kuwa ugu badan. waxa ugu badan ay isticmaalaan cuntadooda waxay ku salaysan tahay cunto dhir ka timid iyo cunto ka timid miraha ama fruitka ka timid faakihada ayay u badan tahay. maalin walba waxay isticmaalaan 2 mar ilaa 3 mar wax ka badan. waxay isticmaalaan khudaar ay isticmaalaan, waxay isticmaalaan faakiha ay isticmaalaan, saliidda ay isticmaalaanna inta badan waxay ka timaadaa saliid ka timaada dhir sida saliidda zaytuunka ama saliid dhir kale sida gabaldayaha ama galleyda laga sameeyo ama canola laga sameeyo, canola oil oo kale ayaa ka mid ah waxyaabaha ay isticmaalaan. waxaa kale oo ay isticmaalaan dadka ku nool dhulalka Mediterranean-ka inay isticmaalaan isbuuci 2 mar ilaa 3 mar wax ka badan. waxay isticmaalaan badar ayay isticmaalaan sida bariiska. waxay isticmaalaan baastadoodoo kale waxay u badan tahay baasta qamadi dhammaystiran uu laga sameeyey oo fiber badan oo maaragtay qobkiisii wato ama buunshadiisii wato ayay isticmaalaan. taana waxay ka kaalmeynaysaa in ay ka hortagaan calool adayga. waxaa marka badarka ka mid ah aynu niri, ama ha noqoto galley ama masago ama ha noqoto digir, in cuntada ay isticmaalaan ay u badan tahay. isbuucii 2 mar ilaa 3 mar waxay isticmaalaan. haddana isbuucii ilaa 2 mar, 1 mar ilaa 2 mar ama ilaa 3 mar waxay isticmaalaan ukun ayay isticmaalaan. waxaa kaloo lagu yaqaanaa cuntada Mediterranean-ka inay u badan tahay malayga ama cuntada kale ee badda ka timaada. 2 mar ugu yaraan ilaa 3 mar iyo wixii ka badanba waxay isticmaalaan. waxay cunaan malay ayay cunaan. waxay kaloo cunaan hilibka cad oo ka yimaada digaaga ama doorada ka yimaada ayay aad iyo aad u isticmaalaan. ugu yaraan isbuucii 2 mar ilaa 3 mar ayay isticmaalaan. cuntadooda waxaa aad iyo aad ugu yar hilibka gaduudan sida kan ka yimaada ariga ama lo-da ama geela, inkastoo dadka Mediterranean-ka badankooda aynan isticmaalin hilibka geela marka laga reebo dalka Masaarida. marka cuntada waxaa la arkay in dadka isticmaala cuntada Mediterranean-ka ay ku yar tahay cudurrada ku dhaca wadna xanuunka, cudurrada u keenaan, iyo waxaa ku yar dhiigkarka ayaa aad iyo aad ugu yar. waxaana taa keenaysa in cuntada ay isticmaalaan oo fruitka iyo miraha iyo khudaarta u badan in
ay ku badan tahay potassiumkana dhiigkarka ayuu u wanaagsan yahay, dhiigga wuu dejiyaa. Cusbada ayaa aad iyo aad ugu yar, sodiumtii ayaa ku yar, taana waxaa lagu yaqaanaa inay dhiigga kicinayso. marka laysku soo koobo waa inaan khudaar badan isticmaalnaa, fruit badan isticmaalnaa, faakihada isticmaalnaa, saliiddaan isticmaalayna ay ka timaada saliidda zaytuun, inaan isticmaalna malayga, inaan cunno doorada, inaan cunno, in hilibka guduudan aynu yarayno si ay noogu yaraato cudurrada wadna xanuunka iyo cudurrada dhiigkarka ay keenaan. inta barnaamij kale oo midkan la mid ah oo maanta aynu kaga hadlaynay cuntada Mediterranean-ka ama Mediterranean diet, waxaanu idinkaga tegaynaa nastawdicukum allah. waxaanu idin leenahay allahuma ishfina laa shifaa ilaa shifaauka shifaaun laa yugaadiru saqama. wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.